wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Somaliland mudane Maxamed Daahir Axmed iyo agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee Somaliland Maxamed Xasan Saleebaan oo uu heliyay agaasimiye ku-xigeenka waaxdaasi ayaa waxa kormeer ay ku soo mareen xarumaha cashuuraha bariga ee shanta degmo ee magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay waxaana halkaas ay kala kulmeen warbixin ay u soo bandhigeen howlwadeennada wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ayaa tafaasiil ka bixiyay kormeerkaasi waxyaabaha ay ugu kurgaleen cashuur bixiyaasha reer Somaliland maanta cashuurta ay dhamaantood diyaar u wada yihiin oo dad cashuurtii wada bartay ay yihiin taa waan isku soo dhaweynayaa waana idinku bishaareynaya waxaan jecelahay rajiimkan cusub ee imanka Musabbix hogaaminayo iyo maamulkiinan cusub ee wasaaradda maaliyadda wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkaba iyo agaasimaha cusubba waxaan rajaynayaa idina halkii aan wadnay kor uga sii qaadi doontaan ujeedadaynu halkan u nimi waa laba arrimood waxaynu galay sanad cusub sanadkii hore uu dhamaaday waxaynu doonaynaa dadweynaha reer Somaliland inuu ku baraarujino inay gaadhay waqtigii cashuur bixinta dhammaan cashuurihii yani ma jiro wax cashuur oo cusub oo ummadeenna ku soo rognay cashuuri waa intii aad taqaaneen waa sidii fiicneed ee aad u bixin jirteen waxa weeyaan waxaynu galay sanad cusub waxaynu galay xukuumad cusub ay noo dhalatay ballanqaadyo fara badan baa jiray ballanqaadyadaasi waxa fulinaya cashuurta aynu bixino sida aynu bixino marka waxaynu dadweynaha reer Somaliland ku dhiirigelinaynaa sidii fiicneed ee cashuurta aad u bixin jirteen iyo si ka sii wanaagsan in aad u bixisaan in waqtiga cashuur bixintu taagan yahay saaka kormeer baanu shanta degme magaalada ku soo marnay kormeerkaygaasina wuxuu daaran yahay dardargelinta dakhli ururinta in dakhliga la ururiyo cashuur bixiyaashana kelmad halkan ayaanu uga jeedinanaa kelmadaas oo ah inay xisaab xidhadoodii keenaan 2017 si cashuurtii income taxka amba maxay faa'iidada loo qiimeeyo oo maxay loogana qaado marka muddo ay ugu dambayso February amba bisha labaad ilaa ugu dambeyn bilowga maxay March inay xisaab xidhadoodii keenaan kadibna ay maxay shirkad waliba ay degmada ku taalo ay ku soo xareyso si cashuurtii looga qabto qanacsatadu cashuurta profit income taxka amba cashuurta maxay faa'iidada ta maxay mushaaraadka ku dhacday payroll taxka leeyahay intuba waa cashuuro fudud marka loo eego cashuuraha gobolkan aynu ku noolahay la qaado boqolkiiba 10 baa la qaadaa maxay faa'iidada boqolkiiba 10 ayuu sharcigeenu dhigayaa halka gobolada ay nagu xeersan amba waxaan uga jeedaa dawladaha ay nagu xeersan gobolkan Geeska Afrika ay inta u dhaxaysa boqolkiiba 20 ilaa boqolkiiba 30 ay tahay marka cashuurteenu waa cashuur aad rate-ka amba maxay xaddiga laga qaadaa waa xaddi aad u yar ayna u baahan tahay in xaddiga yar aan la habsaamin waliba maxay qanacsatada waaweyn inay cashuurta iska bixiyaan profit income taxka leeyahay afkeenana lagu yiraahdo cashuurta macaashka ee sanadkiiba mar la